asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mar kale iyo casharadii aqoonkaal.com casharkan maanta waxaan ku baran doonaa sida emailka oo gmail ah loogu sameeyo websiteka ama websitekaaga ayaa wax u samaynaysa email gmaila laakiin noqonaysa magacaaga oo emailka waxa rabto inuu samaysid iyo websitekaaga ah samarhantana waxa martigeliye u noqonaya waa gmailka oo sida gmailka ba loo adeegsanaya laakiin meeshay ka noqon lahayd magacaaga gmail ayay waxay noqonaysaa magacaaga ama emailka wax wala baxdo websitekaaga.com waxaana markaa martigeliye u ah waa gmailka marka casharkan ayaan ku baran doonaa sida loo sameeyo arrintaa waxaa hirgeliya ugu horreyn waxa loo yaqaano Google Apps ama barnaamij laga sameeyo Google-ka kaas ayaa suurtageliya barnaamijkaas oo ah lacag la'aan ah waxaa jira isagoo lacag laakiin waxaan adeegsan doonaa isagoo lacag la'aan adeegsan marka talaabooyinkan qaadi doona maxay tahay inaan diiwaan gelino Google Apps ama barnaamijkaas suurtagal ka dhigaya inaan emailkeennii caadiga ah u wareejino ama websiteka emailkiisa u wareejino gmail oo sidaan soo aragnay ah ama martigeliye u noqonayo gmail ku noqonayo waxaan ku xijinaynaa inaan xaqiijino in adigu websiteka aad u samaynayso emailka aad adigu leedahay ayaa xaqiijinaynaa kadibna waxa weeye waxaan is waafajinaynaa emailka oo Google-ka iyo emailka websitekaaga si aad hadda u isticmaali kartid gmail ama Google Mail waxaan adeegsan doonaa haddaba barnaamijkaas aan u bixin aan u naqaano ama loo yaqaano Google Apps oo uu leeyahay Google-ka ama gmailku ay qayb ka tahay waxaan kala adeegsan doonaa Filezilla taasoo aan u adeegsan doono xaqiijinta websiteka ugu dambeynta waxaan adeegsan doonaa kaleeto waxaa loo yaqaano cPanel-ka waxa weeyaan waa barnaamijka serverkaaga ama martigeliyahaaga laga hago qaybihiisa kala duwan oo websiteka marka waxaan adeegsanaynaa waa Google Apps haddaba si aan u diiwaan gelino waxaan aadaynaa websitekan oo ah google.com/a macnaa xarafka a wey moogtahay ama google.com/apps halkaasaan ka bilaabaynaa marka soo diyaariso browserkaaga kadibna waxaa qortaa google.com/a markaas enter leh wuxuu geenayaa markaa Google Apps oo lacaga ayuu ku geenayaa kaas marka waxa weeyaan haddaad company weyn leedahay ama shirkad weyn leedahay isla marhaanta aad rabtid inaad email aad u fara badan u samayso websitekaaga oo aad adeegsatid gmailka adeegsatid ayaad iibsan kartaa laakiin waxaan adeegnaa mid bilaa lacaga ama bilaasha waxaad riixaysaa meesha ku qoran tahay solutions kadibna waxaad riixaysaa meesha ku qoran tahay Google Apps free halkaa riix markaas wuu geenayaa markaas Google Apps koo lacag la'aan ah kaas waxaad ka samaysan kartaa waa 10 email oo websitekaaga uu leeyahay kan macnaha lacagta laakiin waxa weeyaan waa unlimited ama maxaa weeye xad ma leh inta rabto email baa u samayn kartaa marka inna waxaan adeegsanaa midka aan ilaa 10 email samaysan karno saan u bilowno mar waxaa riixdaa meesha ku qoran tahay get started barta riix waxa ugu horreysa ku weydiinaya marka waxa weeyaan inaad qortid websitekaaga ayuu ku weydiinaya qortid marka website baan leenahay waxaan u bixinay websitekanaga ku qornaa halkaas marka waxaad tiraahdaa submit baad riixaysaa butonkaas markaasuu ku weydiinayaa emailka ugu horreysa u samaynaysa websitekaaga taasoo noqonaysa midda laga maamulayo emailada kaleeto waxaan u bixinaynaa webmaster waxaa rabtaa ku qoran kartaa waxaa ku qoran kartaa haddaa rabtid magacaaga ama waxaa ku qoran kartaa info ama waxaad doontid marka waxaa noqonaysaa magacaaga ama magaca u bixisay iyo websitekaaga.com markaan waxaan u deenayaa webmaster password baan u samaynayaa marka password u samaysid meelaha buuxbuuxin marka u baahan ayaa buuxinaysaa qaybahan oo dhan baa buuxbuuxinaysaa waxaa qoraysaa organization haddaad leedahay waddankaa joogtid baad ka qoraysaa meeshaan marka buuxisid ayaa waxaad riixi doontaa batoonka hoose waxaad aqbalaysaa xeerka u degan baad akhrinaysaa haddaa aqbashay meeshaas waana calaamadsanaataa markaa kadib waxaad riixi doontaa batoonkan markaa riix batoonka markaa buuxbuuxisid shaashadan kuu saaraya markaas waxaad tirahdaa express baanuu riixay markaas wuxuu kuu saarayaa meesha laga hagayo ama laga maareynayo emailkii ama qaybtan aan u bixinay ama loo yaqaano appska oo kaleeto ayuu meesha laga maareynayay marka waxa ugu horreysa inaan marka hore aan webkii xaqiijino waxaa leedahay marka taasaa ku calaamadsan soo ma jeedid waxaa leedahay markaas next ama kan ku xiga next baad riixaysaa wuxuu ku leeyahay meela websiteka la xaqiijiyaa waxaa leedahay marka waa yahay next barta markaa jid wuxuu ku weydiinayaa emailkii aad samaysay furaheeda inaad gashid ayuu ku weydiinayaa
ku qor markaa passwordkii ilaa hadda waxaan samaynay webmaster ma samaynay mogta marka si loo xaqiijiyo website-ka waxaa la qaadan karaa laba tallaabo midkood in la qaato habkan la raaco ama habkan in la raaco labadan hab kanaa marka sahlan inta badan waayo kan waxaa ku sahlan yahay dhowr qaybood buu ka kooban yahay laakiin waxaa qaadanaysaa html-ka qaybta ku qoran tahay wuxuu ku weydiinayaa file halkaa markaa riixdo wuxuu ku leeyahay filekan soo rogo markaa filekan soo rogotid waxaad u dallacdaa inta adigu isticmaalay ftb-ga waxaad u dallacdaa website-kaaga kadibna xaqiiji inuu jiro filekaasu samar hantaana waxaad riixdaa butoonka ku qoran tahay verify halkaa ma fahamti filekana soo roganaysaa fileka soo rogata waxaa u diraysaa internetka website-kaaga khaaladiisa guud waxaad eegaysaa inuu filekaasu jiro markaas waxaad riixaysaa butoonka verify marka filekan soo rogano right clickda uu soo rogo ama waxa weeye riix saa u soo rogotid qaabka u soo rogan jirtay u soo roganaysaa caadiga ahaa waxaana igu soo download gareysmay meeshay ku qoran tahay downloads meeshan igu soo download gareysmay ma jiddaa marka waxaan geysanayaa meelaan ka qaadi karo copy khaanadaasaan ka qaadan karaan geysay ay ku qoran tahay tababar waan iska xiray waxaan la soo baxayaa ftb-gii ftb ku xiriiri website-kaaga markaa meesha website-kaaga ku jiro baad double click ku samaynaysaa kadibna waxaa u diraysaa fileka waa kana moogtahay markaas ka xirtan meeshii dib ugu noqo waxaan samaynay hadda in waxaan soo rogayna filekan samanaanta waxaan u dirnay website-kan u dirnay tijaabi inuu jiro marka waa jiraa ma jidda marka website-kan ayuu ku dhex jiraa meeshaan geynay markaa u soo noqo waxaad tiraa markaa verify xaqiiji dheh taasoo xaqiijinaysa marka website-kan meeshan ku qoran oo aad tiri waxa weye anigaa leh inaa adigu leedahay ayay xaqiijinaysaa marka waxaad tirahdaa verify marka calaamad sax uu kugu qoray isagoo ku dhahaya hambalyo uu kugu hambalyanayo inaad ku guulaysatay inaad xaqiijisid website-kii marka website-ki waa la xaqiijiyey sidaa daraaddeed macnaa waxa weye hadda uu fahamsan yahay inaad adigu website-ka leedahay google-ku uu fahamsan yahay diyaar buuna ku yahay appskii talabadeena ku xigto waxay tahay marka inaan emailkii aan agaasino taas marka si aan u agaasino waxaad qoraysaa google.com/ xarafka a way mogtahay iyo website-kaaga.com website-kaaga magaciis wuxuu ahaa baad ku qoraysaa meeshaas ma garati markaasaa leedahay enter waxaa kuu soo baxaya marka shaashadda laga hagayo oo guud baa kuu soo baxaysa wuxuu ku leeyahay marka hadda waxaa kuu samaysan hal email baa kuu samaysan maaragta meesha toos looga geli karo emailkaaga wuxuu noqonayaa hadhow mail.google.com/website-kaaga.com baa hadhow ka gelaysaa macnaa emailka ka gelaysaa ma garatay halkaa fahamtaan filaya ama sida caadiga oo gmailka u geli jirtay oo ahaa gmail.com ama googlemail.com hadda emailkii gmailka ku samaysan laakiin weli ma fahamsana inuu website-kaagii yahay soo ma marka dib u noqo meeshaan ka bilow marka waxa leedahay meesha ku qoranta mujida continue with setup halkaa setupka baad riixaysaa waxaa leedahay guji bartaas wuxuu kuu soo celiya marka meeshaan ka bilowna soo ma jedid haddii markaad email kale ku daraysid emailkaaga gadaalna waa kaga dari kartaa hadhow hadaa rabtid ayaa waxaa leedahay waa haya useris kaleta ama waxaa leedahay no ma haysto macnaha dad kaleto inaysa macnaha ma rabo marka hadda no baan ka dhigaynaa meeshaan oo usoo noqon doona haddaan doonno waxaad tirahdaa marka next waxaa kuu samaysan waan ku leeyahay markaas emailkii oo gmailka kuu samaysan waan ku leeyahay ma fahanti oo website-kaaga ah laakiin soo ma aragtid next baa tiri butoonku wuxuu waxaa leedahay next ma waxaa isticmaalaysaa buu ku leeyahay serverka oo gmailka mase server kaleto marka waxaan deenaynaa inaan isticmaalino serverka oo googleka inaan isticmaalino baan u deenaynaa bartaas ma jiddi next baan nidhi hadhow emailka waxaa ka gelaysaa mail.google.com/website-kaaga.com wuxuu website-kaaga siduu yahay baa halkaa u gelaysaa ma fahanti marka oo meesha emailka laga gelaayo buu ku sheegaa sidaa u gelaysa emailka soo ma aragtid fadlan daawo qaybta labaad ee fideoga waa socdaa